wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada ee gobolka Awdal ayaa maanta aqoon kororsi ku qabatay hotelka Rays ee magaalada Boorama. aqoon kororsigan ayaa waxaa lagaga hadlayay qiimaha uu leeyahay qoysku iyo sidii loo soo saari lahaa qoys caafimaad qaba isla markaana soo saara ubax dhaqan wanaagsan oo bulshada waxtar u leh. aqoon kororsigan ayaa waxaa ugu horeyntii ka hadlay gudoomiyaha wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada ee gobolka Awdal Firdawsa isla markaana sheegtay muhiimadda uu aqoon kororsigan u leeyahay dad ka soo qaybgalayaasha isla markaana sheegtay in ay ku dhiirigelinayso laguna falaqayn doono sidii bulshada soo saaraan qoys caafimaad qaba ama sidii loo heli lahaa qoys caafimaad qaba. National Gender Policy ama siyaasadda lamaanaha runtii waa markii ugu horeysay ee Soomaaliland ay samayso siyaasadda lamaanaha April 2009 oo golaha wasiiradu cod buuxa oo aqlabiyada uu ku ansixiyay siyaasaddan. way jiraan waad maqasheen sektarada kale dawladdu inay siyaasado jiraan siyaasadda waxbarashada, siyaasadda caafimaadka, siyaasadda guud ee lagu maamulo qaranka. sidaa darteed bay lama huraan noqotay in markii qaramada midoobay ay dooneen in ay sameeyaan qorshihii dib u dhiska Soomaaliland ay laga maarmaan u noqotay in la sameeyo bal xaaska ama la soo celiyo nidaamkii xaaska waxa weeye si loo helo bulsho caafimaad qabta ama horumar leh waa in horta laga soo bilaabaana haani guubay ka talo tahay in la helo qoys qiimeyn dhaqan wanaagsan qaba si loo helo bulshada. waxaa kaloo halkaasi ka hadlay oo aqoon kororsigaasi furay barasaabka gobolka Awdal Axmed Xaddi Sicdi sheegayna in ay sharaf u tahay inuu maanta furo aqoon kororsigani lagaga hadlayo buuda ugu muhiimsan ee bulshada oo ah qoyska. waxaanu sheegay in ay muhiim tahay in la helo qoys wanaagsan bulshada tilmaam u noqda. waxa weeyaan seminaarkan oo ah Somaliland Gender Policy ama siyaasadda Somaliland ee lamaanaha waxa weeyaan mid ka mid ah rukniyada asaaska dhismaha bulshada ama albaabada laga galo horumarka adduunku aanu naqaano inay horumareen waxyaabaha ay ka horumareen ee ka dhisan meelaha ay ka dhismaan runtii iyay ka mid tahay. waayo halkan waxaa ku dhex jirta qoyska marka laga bilaabo bulshada kor loo socdo waxa weeyaan dawladda la soo diinaya ama qaranka dee wuxuu ka bilaabmaa shakhsiga weliba unuga u rukuya waxa weeyaan labada lamaanaha maxay qoyska abuuraya labada qof ee kolka dambana caruurta dhalaya ee isku xidhmayo intaasoo qoys oo kala noqonaysa ee bulshada society samaysanayo society-gaasi dabadna xeerar samaysanayo xeerarkii marka ay noqonayso community-yadii isku tegtegay in ay noqonayaan dawladdii ama ay dal noqonayaan oo wadaaga dhaqan iyo diin iyo af iyo moogtahay bahyo badan yeelanay dabadna state-ku saasuu runtii ku samaysmaa. kale marka waxaa soo galaya equal opportunity weliba Somaliland maanta waxaan oran karaa waa waqtigii ugu habboonayd in siyaasaddan la hirgeliyo weeyaan. waayo maanta waxa weeyaan boqolkiiba intee ayaa qoyska yaa moogtahay breadwinner qofka laxooda keenaya qofka cuntada keenaya ee ilmihii feed garaynaya ma ninkaa mise waxa weeyaan hooyada. runtii maanta haddii la eego more than 75% ana waxaan qabaa inay hooyada tahay breadwinnerka qofka haddii shalay ahayd maxay ahayd ay guriga ku ekayd maanta iyadii way khasab ku noqotay in banaanka u soo baxdo to caana iibisa to basal iibisa to shaqo kala hesha to iskuul ka baxdo seminar meel ka bixisa waxa weeyaan resource-ka ugu weyn ayay maanta dumarku ka yihiin ee ah labor power. marka haddii iyagii aan maaragtay ay noqdeen cidii wax soo saarka ugu badan Somaliland lahayd in la horumariyo la kobciyaa waxbarashadooda fahamkooda siyaasadooda moogtahay in support la siiyo la kobciyaa waa shay waxaan arkaa aad iyo aad muhiim. marka waayo equal opportunity ku jira
qofku inuu dadku u sinaadaan maxay hiday xuquuqda inay waxa ku jirtay Khadar Maxamed Xasan Xidigta News magaalada Boorama.